feerfeer waa degmo ka tirsan gobolka Shabeelle waxay ku taalla xuduudda Soomaaliya iyo dawlad-deegaanka Soomaalida waa magaalo ku wanaagsan wax soo saarka beeraha maadaama uu toolooyinka hoos yimaada degmada feerfeer uu dhex maro webiga Shabeelle aniga daada aan joogo way ka horeysay degmanimadeeda feerfeer sidaan la soo gaarsiiyay ama taariikhda aan ku hayno buugta dawladda way talaahay 48 baa degmo feerfeer loo magacaabo oo waqtiga xilmi boqor xeela salaasi yaa ahayd inta markaa dhibaatooyin badan bay soo martay waa ogtiin oo waxaan ku nala xadka Soomaaliya hadda magaalada Beledweyne waxaan u jiraa 40 kilomitir ee Beledweyne loo jirtaa jidka laamiga ah ee hadda maro Soomaaliya kala qaybiya burca aaday gaalkacyo maray dhul Soomaaliya maray ee marka dambe burca tagana 18 kilomitir loo jiraa magaalada cirifku waxa ku taala xadkii Soomaaliga aan la lahayn xamarna 350 kilomitir loo jirtaaba dagaalka marka dhibaato badan baan la kulannay 1964 dagaal la ka dhacay halkan feerfeer waa laga barakacay jabhadii Nasrullah Soomaalidu isku magacaabaysay Nasrullah isku sheegaysay bay ahayd wixii magaranaysa iyo dawladda Soomaaliya ku soo duushay dagaalkaas 1964 oo taariikhda miilaadiga iyo halkan dagaal ka dhacay magaalada waa laga barakacay haddana mar labaad baa magaranaysa dagaalkii istaagay degmooyinka toos markaa loo qabsaday ma ahayna dagaal ka dhaco dadka ka barakacay mar labaad haddana dagaalkii 1977 oo Soomaaliya maaha Soomaali weyn ay raadinayeen dawladda Soomaaliya ay raadinaysa yaa haddana la qabsaday feerfeer baa la qabsaday qalaaf la qabsaday mustaxiil la qabsaday ilaa qabri daari meel walba la tagay 14 sano qaxooti haddana dadka ay ku maqnaayeen ee Soomaali galeen dadkii waa la qaxiyay degmada feerfeer waa degmo laba wadaad ay soo gasho degmada Shilaabo kale waxaan la leenahay daris ilaa qabri daari iyo wardheer dhabaas uu soo galaa dhabahan Shabeelle ee mustaxiil iyo qalaaf iyo gudeeyna uu soo galaa labada waday yaa soo gasho gobolka Hiiraanna waxay ku taalaa gobolada dhexe wadnahooda ku taalaa waxa weeye waa soo adugaas ku sheego Beledweyne qarka nooc waa dhul marka dhanka Shilaabo kalena xoolo dhaqatada iyo ceelashii ay ku yaalaan dhankan webiga Shabeelle dhabaha ka yimaadana baarihi baa ku yaala iyo webiga Shabeelle marka wadadan gudeeyna aad bay nooga fogtahay 240 kilomitir iyo aad nooga fogtahay degmaan marka hadaan kormar marka degmooyinka ugu horeeyay kamid tahay taariikh هذا feerfeer waan ku tusi karaa waxa ku taalo meesha xadka guriyo konton guri ah oo ciidamada nimankii la dhigi jiray daraawishta magaalada Itoobiya ay degnaan jireen Soomaaliya markii 9 bilood intay nagu soo dhac orday ee noqotayna guriyihii iyo wixii adeeg bulshada halka ku lahaa iyo wixii iskuulka yaalo dhamaan meel inta ku xireen baadana qarxiyeen waana qarxiyeen oo Soomaaliya aan tagnay haddana Soomaaliya markaa tagnay kadib ka soo noqonay qaxootiga kadib markii qoladii dhargiga ay magaranaysaa haddana 14 ay muddo laga maqnaa haddana waa soo noqonay wadanka dhisnay haddana maxaakiim waxa niman isku magacaabayo Soomaaliya xabad ka waday baa haddana magaranaysaa yaaba jidadkii Soomaaliya naga soo galayo dhanba waxaan noo dhawaa jidadka ama adeeg bulshada kale ama waxaan helaynaba Soomaaliya nooga dhaweyn markaan hadda aan Itoobiya ka raadsan lahayn saa guday baa noogu sokaysa 240 kilomitir noo jirtaa jidna ma laha marka hadda aado ilaa dhowr maal habeen iyo maalin baad soo soconaysaa waxaan moodaa hadda in la magacaabay waxaana waxa ugu aan baahidii guud ee aan hadda ka sheekeynay yaa inta badan dadka yaa u ah asaasi baxadeeda anaga waagi hore waxaan la hadla lahayn galaadi
marka xagga Soomaaliya ee xadkeeda la raaco galaadi baan lahayn hadda degmooyinka socbaana laga sameeyo waa tashiilaabiye la sameeyay baaxadeeda dhulkaati aad buu weyn yahay dhulka webiga aan ka haysanana markaan kaashka waxa weeyaan ilaa 30 kilomitir oo webiga aan haysanaa maana ka faa'iideysan bixiran looma sameeynin qalabka cagafyada ee magaranaysa ay dadka waxayo naloo masinin biyo baxa wixii aan tabcana xataa way ogtiino biyo baxa fataada biyaha kow meelaha u nugul baan ka mid nahay saddex mar oo isku xigto saddex roob oo soo dhaafnayba saddex biyo baxa inta soo baxday baa dalagii aan tabcana xataa baabiyi beerley way bank ugu weyn baa ku yaala degmada Feerfeer webiga Shabeellaha maro qalabkii beeraha sidii la rabay ma hel kuwa biyaha lagu xire dhaamiyada kale lagu taakeeyo inta badan dalaga beeraha oo dadku soo baxo waxay uga maral jabaan arjinaalka lagu dhisi lahay buurka malaha dalaga biyo baxda goys ninkii dalaga u baxana wada uu ku safarsado malaha beerleyda kale arrimaha haysta arrimahaas koow ka ah jidka kale waad garan kartaa 240 kilomitir hooyo ambalaas la saaro 240 kilomitir la sii waday isbitaalka ugu soo guday dhibka haysta oo garan kartaa inta hadda 3 sano qoladan xisbiga hadda marka horna ahaaba hadda nabiibi la baxay adeeg bulsho badan baa helnay adeeg bulsho wax waxaan sheegaynaa wax aan cid ku maagayna ma hayo wixii rasmi aan sheegaynaa dadka odayaashooda baan qabiilkooda isbisuudanahay hadda waxaan heli jirin waxaan helnay inaan xafiisyo annaga aan leenahay xafiiska degmada ma la dhiso in howlka lagu shiro ka la dhiso in dugsi sare oo macnaha dugsi sare ahaa standard oo waliba aan hadda 20 iyo dhowr sano ka hor dugsidan sameysnay aan dugsiyada hoose ku dhex dhigaynay dugsiyada hoose la dhisay oo wali dugsi dhaxayn dugsi dhaxayd hoose aan ku dhex dhigaynay hatta dugsi sare hadda la dhisay marka xukuumadan intii hadda ay 3 sano joogtay wax badan baa la qabtay midaal sida hadda nabadgelyo kalena wax badan baa la qabtay nabadgelyada si fiican baa wax loo qabtay runtii ma hadda ilaahay iskale haddana ka xukuumad ahaan looga baahan celinayna mid kale ciidamada New Bolska gaarkaana ciidanka gaarkaana aad baan ugu mahad celinaynaa maxay yahay nabadgelyada hadda meesha aan ku deganahay waa iyaga hadda ku deganahay ilaahay ka sokow yaan ku deganahay ayagoo har yahay ma garanaysa qorraxdooda iyo dhiigoodii wax walba noo horay aad baan ugu mahad celinaynaa midda kale xisbiga aad buu mahadsan yahay wixii karaankiisaan uu qabtay maadaama dugsiga sare iyo hoolka iyo waxyaalo badan hadda la taaban karo isbedelkii uu taabtay degmooyinka ugu dhib badan ee xadka waliba u sii degnaa Soomaalidu waxay tiraahdaa ariga malkumoodku uu sameeyay waxarahaas mareegta uu soo dheerbeetar wixii deegaanka ka dhacay anaga xad baan u sii deganeynba oo dacatiga aha waad garan kartaa ama dhan Soomaaliya kuleel ha ka yimaado ama nabadgelyaha ka yimaado iridii laga galay aqalka Addis Ababa ku yaal iridii laga galay way Feerfeer ama jigjigo kale waad garan kartaa marka annaga dhibkaas u sii dheeran haystay wax laga soo sheekayn kara ma ah isbedelkana aad baan uga mahadinaynaa bulshada Soomaaliyeed waxaan sheegayaa markii xorriyada qowlka la helay ama xuquuqul insaanka la helay Soomaalida waxa fiican ayadana isbaamushay in gacan bir lagu qabto wax macna uma keenayso haday degmo tahay haduu shacab yahay waliba hadda waxa soo noqdon ugu baaqaynaa bulshada qaybihii qabiilaadka iyo ishaysadka baa soo noqday waxaas in laga tanaasulaan bulshadana ugu baaqaynaa laamigaasi dagaalkii koobaad markuu dhamaaday ba Talyaaniga sameeyeen waan ogtiin Itoobiya naftigeeda ilaa xalal leeyba tageen laamiga ay ka soo bilaabeen xamar bay ayagoo sii wado yaa gadaal Ingiriis ka qabsaday xamar iyagii waa sii wadeen wadada labay ka dhigeen midna wadadan shilaabay qaatiyeen hadda waa arki kartaan ilaa laba baar waxay u sameeyeen xataa buundooyinkii laakiin laami meena saarin ayagoo jid cad ku wada laakiin buundooyinkii sameeyo ilaa shilaaba gelinayo tanna inay webiga Shabeelle mariyaan rabo ilaa qalaafe mariya rabo loo meeshan daan yar la yiraahdo oo musaxil ka shaqeysta joogo yaa gadaal Ingiriis ka qabsaday
markuu gadaal ingiriiska ka qabsaday ayaga hadee talada farada waa ka baxday xaggan Ethiopia waa laga jibiyey